kulan waxaan wanaagsan saaxiibada ku xiran qaran sports waan kaga mahad celinaynaa doorkiina dhiirigelinta ay ku aadan kor u qaadista iyo horumarinta ciyaaraha wadanka. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa awaalmarin magaalada Istanbul lagu siiyay ciyaartoydii hore kooxda Elman iyo xulka qaranka Soomaaliya Yuusuf Cali Riyo Cali iyo Cabduuli Maxamuud Cabdijoon oo kamid ah macallimiinta ugu wanaagsan kubadda cagta Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa wadanka Turkiga. Riyo Cali ayaa bishii July 2021 wuxuu ku guuleystay awaalmarinta shakhsiga ugu wanaagsan sportska Soomaaliya kadib awaalmarin lagu siiyay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Yuusuf Cali Riyo Cali wuxuu hore u soo maamulay xulka qaranka Soomaaliya isagoo sidoo kale hore ugu soo ciyaaray xulka qaranka kubadda cagta dalkeena. Waxaana intii uu ciyaaryahan ee macallin u ahaa naadiga Elman uu kula guuleystay tartamada kala duwan ee gudaha wadanka. Marka taas laga tago, Riyo Cali wuxuu soo maamulay naadiga Dekada oo 3 sano xiriir kula guuleystay horyaalka Somali Premier League waxayna taas kor u qaaday magaciisa xirfadiisa macallinimo. Laakiin bishii July 2021 waxaa lagu awaalmariyay shakhsiga ugu wanaagsan sportska Soomaaliya inkastoo weli uusan awaalmarin caalami ah ka helin xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta maadaama 15 sano la soo dhaafay oo qayb ka ahaa geedi socodka iyo horumarinta kubadda cagta Soomaaliya heerarkiisa kala duwan. Dhinaca kale, Cabduuli Maxamuud Cabdijoon oo soo saaray ciyaartooy badan oo wadankan magac ku leh heerarka kala duwan ee kubadda cagtana ka ciyaarta una ciyaarta qaranka Soomaaliya. Cabdijoon oo maamulay kooxo badan oo wadankan iminkana ah maamulaha kooxda kubadda cagta Hegan ayaa awaalmarintan lagu siiyay magaalada Istanbul isagoo halkaas ku sugnaa. Labadan ciyaartooy hore oo ah saaxiibo in muddo ah u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Elman iyo xulka qaranka ayaa awaalmarintooda waxay kor u qaadaysaa magacooda iyo horumarka ay ka sameeyeen dhinaca macallinimada maadaama ay soo saareen tiro badan oo ciyaartooy ah oo iminka u ciyaarta xulka qaranka iyo kooxaha kala duwan ee Soomaaliya. Falanqayaasha iyo dadka u darasa ciyaaraha waxay sheegeen in aan la dhiirigelin labadan macallin oo kamid ah dhalinyarada iminka ugu wanaagsan hogaaminta dhinaca kubadda cagta wadanka. Waxayna gorfayaasha ciyaaraha sheegeen inay u qalmeen hogaaminta xulka qaranka maadaama xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta uu dhaqaale badan iyo waqti u geliyo macallimiin aan khibrad iyo aqoon u lahayn hogaaminta mashruuca qaranka. Waxaana taa beddelkeeda taageerayaasha iyo falanqayaasha ciyaartooyda ay soo jeediyeen inay muhiim tahay in Cabdijoon iyo Riyo Cali iyo macallimiinta kale ee dalka iyo gudaha wax ku baratay loo dhiibo qaranka si ay u gaarsiiyaan guulo waaweyn mustaqbalka soo socda. Awaalmarintan ay ku guuleysteen Yuusuf Cali Riyo Cali iyo Cabduuli Maxamuud Cabdijoon waxay kor u qaadaysaa loolankooda xagga horumarinta dhinaca xirfadnimo mustaqbalka soo socda. Sidoo kale, Cabdijoon wuxuu hore u soo maamulay naadiga Dekada, Horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Raadsan iyo kooxda Elman isagoo kooxaha Elman iyo Horseed kula guuleystay koobabka gudaha. Laakiin weli wuxuu raadinayaa inuu ku guuleysto horyaalka Somali Premier League isagoo macallin ah. Iminkana wuxuu goor sii horeysay heshiis la gaaray naadiga kubadda cagta Hegan ee hoos timaada ciidanka booliska Soomaaliyeed. Maxaad u rajaynaysaa tababare Riyo Cali iyo tababare Cabdijoon mustaqbalka soo socda dhinacooda hogaaminta xirfadda macallinimo? Intaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkan. Intaan ku kulmi doono muuqaal kale waxaan kaga tagaynaa nabadiina.